kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada qaybtii 23aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 23aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. waxa goor galab ah la soo garaacay albaabka dibadda ee guriga. waxa furtay Muxibbo. waxay haayeen laba nin oo mid dhalinyaro yahay. markii ay salaameen kadib ayaa kii da'da weynaa Muxibbo weydiiyey, gurigan isagii reer Cabdulla maaha? Muxibbo oo weli ninka wejigiisa soo qaban la ayaa tidhi, haa adeer. kadibna raacisay soo galaa. wuxuu weydiiyey yaa guriga joogaa. iyadoo albaabkii dibadda xidhaysa ayay ugu jawaabtay, adeer waxaa jooga hooyo iyo ayeeya Muumina. kadibna wuxuu ku yidhi, waa la ii sheegay geeridii aabbe iyo carruurtii kale. allaha u naxariistee u yeedh hooyo. markiiba intay qolkii ay Madiini ku jirtay u dhaqaaqday ayay sheegtay in laba nin bannaanka ku sugayaan. isla markiibana intay Muxibbo 2 kursi qolka ka soo qaaday ayay labadii nin daaradda u dhigtay si ay ugu fadhiistaan. Madiini ayaa intay xaggii jaamac iyo ninkii dhalinyarada ahaa ee la socday u dhaqaaqday tidhi, alla waa jaamac dirir, indhihii dhiman waaya, geel dhalayana way ku tusaan. Madiini ayaa intay xaggii Muxibbo eegtay ku tidhi, naamiyaana jaamac dirir garanayn, Saxarla adeerkeed. Muxibbo oo wejigeeda khasow ka muuqda ayaa tidhi, allah adeer jaamac iga raalli ahow, waqti dheer ayaa igu kaa dambaysay. jaamac ayaa intuu xaggii ninka dhalinyarada ah ee la socday gacanta ku fiiqay Madiine ku yidhi, Madiina, ninkani waa Saxarla walaalkeed. muddo dheer ayuu ku daalay raadinteeda, laakiin anigoo aakhirtaankii soo helay. Madiine ayaa intay dhinacii Samaale eegtay tidhi, maasha allah, ma Samaalaa? farxad uga weyn oo ay maanta heli lahayd ma jirto. waxa uu ahaa qayb weyn oo nolosheeda ka maqan. Madiine oo hadalkii sii wadata ayaa Saxarla walaalkeed ku tidhi, iska waran eedo, walaashaa aad iyo aad bay kuu jeceshahay. Muxibbo ayaa intay xaggii Samaale jaleecday tidhi, aad iyo aad bay isugu eegyihiin. Madiine ayaa intay yaro dhoola caddaysay tidhi, waa runtaa, quruxdeedii wuu leeyahay. Samaale oo ammaanta badan ka xishooday ayaa intuu qosol yar muujiyey hoos eegay. Muxibbo ayaa xaggii jikada u dhaqaaqday si ay shaah ugu soo kariso nimanka martida ah. jaamac oo Muxibbo la kaftamaya ayaa yidhi, Fariid, sow weli shaahii wanaagsanaa sidii uma karisid? dee wiilkaygii aan kula rabayno weli muu guursan oo wuu joogaa. Madiine oo kaftamaysa ayaa tidhi, jaamacow ilaa iyo intii ay gabadhani raad dhaqaajisay nin baan kugu darayaabaad lahaydee, waxaan ka baqanayaa inay marka dambe run kugu noqoto. xoogaa iswaraysi iyo sheeko xaal adduunyo ah markii ay muddo wadeen ayuu jaamac weydiiyey in Saxarla joogta iyo in kale. Madiine oo dhinaca Muxibbo eegaysa si aan hadalkoodu isu khilaafin ayaa tidhi, gabadh ay saaxiib yihiin bay raacday, berito inay soo laaban doonto ayaanu malaynayaa. jaamac oo intuu bakooradiisii cuskaday ruqaansanaya ayaa yidhi, hadda aniga iyo Samaale waanu iska sii caraabaynaa, berito ayaanu idinku soo noqonaynaa. Madiine oo ka cabsatay in Saxarla la waayo oo ay soo lug go'aan, kadibna ay u maleeyaan inay Madiine been sheegtay ayaa tidhi, maya waxba hayse soo lugoynina ee suga Samaan baan soo toosinayaa si uu meesha aad degantihiin u soo arke. jaamac oo hoos u foorara bakooradiisiina dhulka ku xarxariiqaya ayaa yidhi, oo Samaan miyuu joogaa? isaga oo carruur ah ayaa igu dambaysay. Madiine oo weelkii shaaha lagu cabbay uruurinaysa ayaa tidhi, naa Muxibbo, orod oo u yeedh walaalka. waxaa qolkii ka soo baxay Samaan oo aad moodid inuu dheelalowsan yahay. jaamac intuu xaggii Samaan u dhaqaaqay si uu u salaamo ayuu yidhi, war bal dunidan eega, war ma ninkan baa Samaan ah? jaamac oo hadalka sii wata Samaanna salaamaya oo wejigiisana eegaya ayaa yidhi, maasha allah, ii waran adeer, wallaahi nin weyn baad noqotay, haddii aad cidla iga soo bixi lahayd kuma garteen. Madiine oo xaggii jikada u sii socota ayaa tidhi, war adeer jaamac dirir ma garanaysid miyaa? maalintii aad dhalatay waa ninkii dhakhtarka ila carare. jaamac ayaa intuu farta ugu fiiqay Samaale oo dhinac taagan ku yidhi, Samaan, ninkani waa Samaale, waa Saxarla walaalkeed. kadibna Samaan ayaa xaggii Samaale intuu u dhaqaaqay salaan u fidiyey. markii ay isdhaafsadeen sidee tahay iyo nabad ayay Madiine Samaan ku tidhi, hooyo, adeer jaamac iyo Samaale raac oo meesha ay degan yihiin soo arag. intii ay dhexda ku sii jireen wax hadal ah ima dhex marin Samaale iyo Samaan. inta badan waxaa hadlayay jaamac dirir oo siyaasadda Soomaalida
iyo dadka qaxoontiga ah ee Mareykanka iyo Yurub loo dhoofinayay ka hadlayay. Guriga Soomaali deganaa waxa uu ahaa guri aad u weyn oo qurux iyo dhalaal ka muuqdo. Waxaa albaabka ka furay ninkii waardiyaha ahaa. Waxaa daaradda joogtay haweeney waraabinaysa ubax lagu beeray daaradda. Jaamac oo haweeneydii ubaxa waraabinaysay la hadlaya ayaa yidhi, qorsho iska warrama, waanu soo helnay gurigii Saxarli deganayd. Qorsho ayaa tidhi, maasha Allah, waa Ilaahay mahadii, oo maxay idin soo raaci weyday? Jaamac ayaa qorsho ugu jawaabay, Saxarli way maqnayd, laakiin inankan oo reerka ay la joogto ah ayaana soo raacay si uu gurigiina u soo arko. Jaamac oo hadalka sii wata ayaa yidhi, ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Samaan Cabdulle, laakiin dad badani waxay u yaqaanaan madaxay. Isaga iyo reerkiisuba abaal weyn ayay ku leeyihiin Saxarla. Qorsho ayaa Jaamac ku tidhi, insha Allah waanu u abaal gudi doonaa, inkastoo aan abaal cidina gudi karin. Ma annagaa filaynay inay Saxarli nooshahayba? Qorsho ayaa tidhi, Soomaale, hooyo kuraasi soo bixi, walaalahaana u yeedh. Wax yar kadibna waxaa guriga ka soo baxay Soomaali iyo 3 dhalinyaro ah oo wada socda, kuraasidiina sida. Jaamac ayaa intuu xaggii Samaan iga yidhi, inankan Samaan ayaa la yidhaahdaa, waa reerka ay Saxarli la joogto. 3 qof ee aad arkaysaana waa Saxarla walaalaheed. Jaamac oo hadalka sii wata ayaa yidhi, dhinacaas midigta ka bilow, waa Sureer, Saylaan iyo Saad. Sureer ayaa intii afka gacanta saartay iyadoo farxad iyo naxdin isugu darsameen tidhi, ma Saxarla ayaa la helay? Waxaa sidoo kale filo waa ku dhacay Saad iyo Saylaan oo ka daba yidhi hadalkii Sureer tidhi, ma Saxarla ayaa la helay? 3doodiiba waxaa indhahoodii soo buuxiyey ilmo. Waxaa gaar ahaan la aamusiin kari waayey Sureer iyo Saad oo farxad la qarracmay. Saad oo weli indhaheeda ilma ka socota ayaa Jaamac weydiisay, goorma ayay imanaysaa? Jaamac ayaa Saad ugu jawaabay, insha Allah iyada ayaa iman doonta mar haddii Samaan gurigii ay joogtay soo arkay. Saylaan oo isagu reerka ugu yaraa waxba ma weydiin Jaamac, laakiin sida walaalihiis ayaa wejigiisa laga dareemayay farxad xad dhaaf ah. Jaamac iyo Samaan oo shaahii Sureer soo karisay cabaya ayuu taleefan Jaamac u soo dhacay. Kadibna qolkii taleefanku yaalay ayuu soo galay. Sureer, Saylaan iyo Saadna meeshii ayay soo fadhiisteen, iyagoo daawanaya Samaan oo aad moodid inay sawirkii Saxarli uga dhex muuqdo. Waxay weydiiyeen su'aalo badan oo Saxarla ku saabsan, sida Saad oo weydiisay, ma noo eg tahay? Kadibna Samaan ayaa ugu jawaabay si weyn. Iyaga oo sidii isu hor fadhiyo oo isu daawanaya ayaa Jaamac diray taleefankiisii soo dhammaystay. Kadibna ku yidhi, Samaan, waa waqti dambe, aan ku sii dhoweeyo ee soo kac adeer. Inkastoo Samaan ku yidhi Jaamac iska joog, waxa uu ku adkaystay inuu sii dhoweeyo. Kadibna Saxarla walaalaheed iyo hooyadood ayaa ku yidhi, maca salaama, insha Allah waynu is arki doonaaye. Markii uu Samaan albaabkii ka sii baxayay ayay Sureer ka sii daba tuurtay, nagu salaam walaashayow. Intii ay dhexda sii socdeen ayuu Jaamac u sii sheekeeyey Samaan, waxaana uu u sheegay in haweeneyda uu arkay ee Qorsho ay tahay midii uu Saxarla aabaheed guursaday markii ay hooyadeed umur raacday ee ay dhimatay. Waxa kale oo uu sheegay in Saxarla aabaheed dagaaladii waqooyiga ka socday ku dhintay, kadibna ay Qorsho iyo carruurtu xeryihii qaxoontiga ee Xarshin tageen, halkaasoo Qorsho walaalkeed Qumane oo Ingiriiska joogay ka dhoofiyey. Haddana ay halkan u yimaadeen Soomaali oo gabadh Soomaali Kenyaan ah guursanaya. Inkastoo Samaan aad ugu farxay in Saxarli ay reerkoodii heshay oo ay ku noqon doonto wax weyn oo aanay filayn, haddana waxaa ka yaabiyey sida guurka Saxarla iyo kan walaalkeed isugu soo beegmeen. Waxa kale oo uu Jaamac dirir u sheegay Samaan in Saxarla reerkoodu wax badan aaminsanaayeen inay dhimatay. Qorshana ay had iyo goor isku qoomamayn jirtay inay iyadu ka mas'uul ahayd Saxarla baxsigeedii. Waxa Jaamac sidoo kale Samaan u sheegay siday Qorsho uga sheekaysa dulmigii ay Saxarla iyo Soomaali u geysatay markii ay yaryaraayeen, iyadoo sabab uga dhigtay lafteeda oo da'yarayd oo aan garaad fiican lahayn, iyo iyadoo reer miyi ahayd oo aan wax badan adduunka kala socon. Waxay Jaamac u sheegtay inay arrintaas iyada iyo Soomaali wax badan ka wada hadleen oo uu cafiyey, inkastoo uu cuqdad ka qabo baxsigii walaashii ee ay iyadu sababtay. Waxa kale oo ay Qorsho ballan qaaday, sida Jaamac u sheegtay, in haddii Ilaahay Saxarla nolol ku tuso ay garhka iyo labada gundood qabsan doonto, cafisna weydiisan doonto. Qorsho ayaa Jaamac ku tidhi, sida aanu reer ahaan isugu duubannahay oo isu jecel lahay, waxa kaaga markhaati kacaya
in aanu dhammaantayo halkan u joogno arooska Samaale. Samaan oo war ballaaran xambaarsan ayaa gurigii ku soo laabtay. Muxibba ayaa isla markuu Samaan albaabka ka soo galay weydiisay meeshii Samaale deganaa ma soo aragtay. Samaan ayaa Muxibbo ugu jawaabay keligii ma ahee reerkooda oo dhan baan soo arkay. Muxibba ayaa Samaan weydiisay maxaad ka wadaa reerkoodii oo dhan. Samaan ayaa ugu jawaabay waxaan soo arkay 3 walaalihii ah iyo hooyadood. Muumino oo daaradda fadhiday tusbax weyna rogaysa ayaa tiri ma dhulka ayaa dhalay intay ka soo baxeen maxaa weligood loo maqli waayey. Muxibba oo wejigeeda xanaaq ka muuqda ayaa ayeedeed Muumino ku tiri ayeeyo ha dambaabin ciddan waxba kama taqaanide saxarla cidla lagama helin oo dad bay leedahay. Madiina ayaa intay Muumino oo dhinaceeda fadhiday eegtay tiri xajka xitaa haddii ay tagtay dembiga iskama dhaafayso. Muumino oo dhinaca Madiina jaleecaysa ayaa tiri xajka haddii la tago ma runta ayaa la sheegin baa la yidhi. Muxibba oo xanaaq darteed wejigeedii isbedelay ayaa iyadoo ayeedeed Muumino dhinac maraysa oo xagga jikada u socota ku tiri ayeeyo wallaahi waxaad ku hadlaysid naar ayaad ku gelaysaa. weligay ma u malaynayn in aad sidan u fakaraysid. Muddo saacad ku dhow iyagoo xanaaq dartii kala aamusan ayaa albaabka lagu soo garaacay. Muxibba oo jikada ku jirtay ayaa si degdeg ah u baxday oo albaabkii furtay. Waxaa soo gashay gabadh ay Muxibbo saaxiib yihiin oo xaafadda Islii degan. Waxaanay u sheegtay inay saxarla masaajidka xaafadooda ku yaalla ku aragtay. Markiiba Muxibba ayaa oraday oo Samaan albaabkii ku garaacday una sheegtay in saxarla la soo arkay. Waxa uu u sheegay in gabadhu qolkiisa soo gasho si ay isu waraystaan. Markii ay muddo 2 saacadood ku dhow halkii ku sheekaysanayeen ayaa waxaa bannaanka u soo baxay Muxibbo iyo gabadhii saaxiibteed ahayd. Kadibna waxay ku ballameen inay masaajidka maalinta Jimcaha oo berito ah ay saxarla ku sugaan. Habeenkaas Samaan farxad iyo warwari suwan ayuu ku jiifsaday. Waxa uu ka warwaray inuu saxarla heli doono iyo in kale, iyo in haddii uu helo ay soo raaci doonto iyo in kale. Hurdo fiicanna ma uu seexan. Inkastoo ay isaga iyo Muxibba ku tashadeen inay salaada Jimcaha ku qabtaan saxarla, haddana subaxdii hore ayuu isagu labistay oo iska diyaar garoobay. Samaan oo markaas qureecday oo daaradda fadhiya ayaa waxaa qolka ka soo baxday Muumina oo ku tiri arxaad waqtiga isaga qaadaysaa oo aad shaqadaadii ugu noqon weyday. Garoobtani ma sixir bay kuu qabatay? Uma uu jawaabinaye intuu dhinaceeda eegay oo madaxa ruxay ayuu ka jeestay. Markii ay saxarle guriga reer Cabdulle ka cadhootay waxay u tagtay gabadh ay masaajidka isku barteen oo xaaladeeda si fiican ula socotay. Inkastoo saxarle aad u rabtay kana go'nayd inay Samaan guursato, haddana way ka gilgilatay inay hoos isu dhigto oo meel shakhsiyadeeda iyo nasabiyadeeda mugdi la geliyay ay isu dhiibto. Inkastoo ay dhibaato badan ka soo martay, haddana waxay ahayd ruux markasta isku kalsoon oo jecel in dadnimadeeda la ixtiraamo. Nafteedana waxay mar walba u sheegi jirtay xaqiraaditii cadar duwanaha igu ekaato. Waxaa soo dhowaaday waqtigii salaada Jimcaha. Samaan oo weli kursigii uu arooryadii hore ku fadhiistay ku fadhiya ayaa Muxibba u yeedhay si ay isu raacaan. Kadibna iyagoo niyad wanaagsan si fiicanna u labisan ayay albaabka ka baxeen. Madiina ayaa iyagoo albaabka ka baxaya kasii daba tidhi ilaahay khayr ha idinla soo kulmiyo. Muumina oo Madiina dhinac fadhiday ayaa intii xaggeedii jaleecday ku tidhi ninkan jinni baa ku dhacee maad qabatid ood quraan saartid. Markii ay masaajidkii gaadheen waxay ku tashadeen in labadooduba si degdeg ah u soo baxaan marka ay tukadaan si ay saxarla bannaanka ugu gaadaan inta aanay bixin. Waxa kale oo Samaan u sheegay Muxibbo inay albaabka laga soo gala agtiisa ku tukato si ay marka ay salaada dhammaysato si degdeg ah bannaanka ugu soo baxdo oo aan dadku u xanibin. Sidii ballantu ahaydna markay salaadii dhammaatay labadoodiiba bannaanka ayay si degdeg ah ugu soo baxeen. Sidii ay filayeenna saxarla ayaa albaabkii dumarka ka soo baxday. Markiiba waxay indhahoodu isu dhaceen. Saxarla iyo Muxibbo oo meel aan albaabka waxba ka fogeyn ku sugaysay. Kadibna saxarla ayaa iska dhigtay sidii qof aan Muxibbo arkayn oo iyada oo dhinac kale eegaysa Muxibbo dhinac ka dhaaftay. Isla markiiba Muxibbo ayaa intii xoog u orday saxarla isku duubtay. Saxarla oo isku dayeysay inay Muxibbo iska fujiso si ay uga baxsato ayaa Samaan ku soo gaadhay oo saxarla labada gacmood ku dhagay. Saxarla oo aad mooday in wejigeeda xanaaq ka muuqda ayaa Samaan ku tidhi Samaan
isii daa yaan dumarku kula yaabine. Samaan ayaa ugu jawaabay, wallaahi ku sii dayn maayo ilaa aad ku dhaaratay inaadna raacaysid. Saxarla ayaa ugu jawaabtay, haye waan idin raacayaa sii daa. Samaan ayaa ku yidhi, haye dhaar ma aha, waa inaad ii dhaarataa. Dumarkii masaajidka ka soo baxay ayaa iyaguna ku soo xoomay oo weydiiyey waxa ay inantu samaysay. Kadibna Muxibba ayaa ugu jawaabtay, waa walaashay oo naga soo xanaaqday wax dhibaato ahi ma jiraan. Saxarla ayaa la soo marsiin waayey inay dhaarato. Kadibna Samaan ayaa ku yidhi, Saxarla, waxaan kuu hayaa war aad ku faraxdo kii ugu weynaa, haddaadna raaci weydana kuu sheegi maayo. Intay wejigiisa eegtay ayay ku tidhi, waa maxay warkaasi? Samaan ayaa ugu jawaabay, Samaale ayaa warkaaga hayaa. Intay farxaddii Muxibba isku duubtay ayaa oohinteedii la aamusiin kari waayey. Kadibna intay dhulka fadhiisatay ayay hoos u runduusatay iyadoo weli ooyeysa. Muxibba ayaa iyaduna dhulka la fadhiisatay iyadoo ilmada ka tirtiraysa, una sheegaysa inay Ilaahay warka wanaagsan ugu mahadnaqdo oo oohinta joojiso. Kadibna Samaan ayaa inta uu hoos u foorarsaday labada gacmood qabtay si uu u istaajiyo. Iyadoo ka xishoonaysay ninka masaajidka hortiisa gacmaha haya ayay Samaan ku tidhi, Samaan isii daa walaal, aniga ayaa kacaye. Markiiba waxaa maskaxdeeda ka baxay aflagaadadii iyo ku dhaga hadalkii Muumina. Waxay ilowday wixii adduunyada dhib soo maray, waxaana aad moodaysay nuurka iyo farxadda wejigeeda ka ifaya in bil khayr qabtaa u dhalatay. Markii ay masaajidka ka tageen, gurigii kuma noqone waxay isu raaceen magaalada hoose. Intii ay dhexda sii socdeen ayay Saxarle dhowr jeer weydiisay warkii Samaale ee ay maqleen. Kadibna Samaan ayaa ku adkaystay inuu u sheegi doono marka ay qadeeyaan. Waxay ka cabsi qabeen in haddii ay u sheegaan in Samaale magaalada joogo, ay cuntaba ka degi weydo oo ay tidhaahdo si degdeg ah igu geeya. Laakiin marna mala awaalkeedu uma sheegin in Samaale Nairobi joogi karo. Waxay ka soo qaaday in dhulkii looga soo warramay iyo meesha uu ku sugan yahay. Waxay tageen maqaayadii Trattoria Restaurant ee uu maalintii hore guurka ugu soo bandhigay. Intii ay qadada sugayeen ayay Muxibba kaftan ku bilowday Saxarla si ay uga farxiso. Waxaa ka muuqday inay aad u fakaraysay, taasoo dhici kartay inay la xidhiidhay xanaaqii Muumina oo ku soo laba kacleeyay iyo farxaddii filowaaga ahayd ee walaalkeed Samaale warkiisa ku saabsan. Markay cabbaar Muxibba qodqodaysay si ay uga farxiso Saxarla ee ay waxba iska bedeli waayeen ayay ku tidhi, haddii aan kuu sheego warka farxadda badan ee aad sugaysay, ma iska cafinaysaa xumaanta aad ka tirsanaysid reer Cabdulle? Saxarla ayaa ugu jawaabtay, walaal waad ogtahay in aanan reer Cabdulle wax xumaan ah ka tirsanayn. Muxibba ayaa Saxarla ugu jawaabtay, waan ogahay, laakiin duqdan guriga reer Cabdulle joogtaa wixii ay geysato annaga ayaa ka mas-uula. In muddo ah markay hadalkii isku colceliyeen ayuu Samaan ku yidhi, Muxibbo, maxaad u dhibaysaa maad u sheegteed in Samaale magaalada joogo? Saxarla oo koob biyo ah afka ku sii wada oo rabtay inay cabto ayaa farxadda oo ka tan badatay awgeed koobkii faraheeda ka baxsaday oo miiska ku dul jabay. Muxibbo iyo Samaan ayaa isku mar kor u booday si aan biyuhu dharka uga qoyn. Saxarlina intay miiskii madaxa saartay ayay oohin bilowday. Muxibbo oo Saxarla madaxeeda kor u hinjinaysa ayaa ku tidhi, abbaaya kor u kac, yaan dhaladu ku jeexine. Kadibna quraarada yaryar oo wejiga Saxarla ku hadhay iyo biyihii ayay Muxibba maro miiska taallay kaga masaxday. Waxa warkan cusubay ku noqday Saxarla filawaa. Weligeedna marna niyadda may gelin in iyada iyo Samaale nolol isku arkayaan. Markiiba waxa wejigeeda iyo qalbigeeda laga saaray xumaantii ay Muumina ka tirsanaysay. Intay kor u kacday oo Muxibba isku duubtay ayay labada dhaban ka dhunkatay, iyadoo uga mahad celinaysa warka farxadda badan ee ay u sheegtay. Waxa kale oo ay ku booday Samaan. Kadibna intii aanay qabsan ayay dhexda isku qabatay xishood dartii. Markaas ayaa intay salaan u fidisay Samaan ay gacanta ka dhunkatay. Muxibba oo Saxarla la kaftamaysa ayaa ku tidhi, kollay duqaaga ayuu noqonayaaye, maad hadda habiska siisid. Saxarla ayaa iyadoo sugi kari la inay Samaale aragta Samaan ku tidhi, walaal maan baxno. Samaan ayaa ugu jawaabay, maya aan horta cuntada cunno, insha Allah Samaale mar dhow ayaad is arki doontaane. Saxarla ayaa tidhi, wallaahi uma malaynayo in cunta iga degayso aniga oo aan Samaale arag. Iyagoo weli hadalkii isku calcalinaya oo aan baxnay iyo aan joogna ku doodaya ayaa inankii cuntada siday soo kor joogsaday. Kadibna waxay dani noqotay inay iska qadeeyaan. Intii ay qadeynayeen waxa uu Samaan u sheegay Saxarla
inuu la kulmay 3 dhalinyaro ah oo ay walaala yihiin iyo hooyadood. Waxay weydiisay hooyadood oo magaceed. Samaan ayaa ugu jawaabay, waxaan u malaynayaa inuu ahaa Qorsho. Saxarlo oo wejigeeda naxdin iyo fajac ka muuqdaan ayaa dib u su'aashay, Qorsho? Samaan ayaa ugu jawaabay, laakiin qorshadii aad ogeyd ma aha. Waxay u muuqataa qof aad u wanaagsan, iyada iyo carruurteeduba. Samaan oo hadalka sii wata ayaa yidhi, markii aan u xaqiijiyey inaad magaalada joogtid kulligood way ooyeen, sida ay kuu jecel yihiin aniga ayaaba ka yaabay. Saxarla ayaa yaab labadii indhood soo baxeen. Xitaa waxay u malaysay in Samaan ku ciyaarayo, inkastoo ay muddo dheeri ka soo wareegtay intii ay reerka dhalay ka maqnayd. Haddana way rumaysan weyday carruurtan waaweyn ee ka dambeysay. Inkastoo aanay Saxarle jeclayn inay iyada iyo Qorsho mar kale adduunka isku arkaan, haddana markii loo sheegay in marka laga reebo Samaale 3 kale oo walaalaheed ahi magaalada joogaan, waxay dareentay inay noqotay qof dhammaystiran oo dad leh, iyo sidii iyo xaqiraadii muuminina ay beenowday. Weligeed wax reerkooda ah oo muxibo iyo kalgacal u muujiya may arag, waxaana ku abuurmay warwar iyo farxad isku dhafan. May rabin inay wejiga Qorsho mar kale adduunka ku aragto, waxaanay sugi kari laadahay la kulanka Samaale iyo walaalaheeda aanay hore u arag. Intii ay dhexda sii socdeen, Saxarle fikir dheer ayay gashay, hadalkiina Muxibo iyo Samaan way ka goosatay. Muxibo ayaa intay Saxarle gacanta ku dhegtay ku tidhi, Saxarla, maad hadashid, waxay ahayd inaad faraxdid. Muxibo oo hadalka sii wadata ayaa Saxarle weydiisay, Allah, oo gacantii baa dhididku qaydaye, ma neerfis baa tahay? Waxba may odhanay. Intii calaacalaheedii eegtay ayay kadibna xaggii Muxibo jaleecday, iyadoo dhoolla cadaynaysa. Waxay ugu dambayntii gaadheen Samaale iyo gurigoodii. Waxaa albaabka ka furay ninkii waardiyaha ahaa. Waxaa daaradda dhex taagnaa 4 walaalaha ahaa, Samaale, Sureer, Saad iyo Saylaan, oo markaas gurigii reer Cabdulle ka soo laabtay, kuna soo hungoobay inay Saxarle la kulmaan. Samaan ayaa arkay Saxarlo oo indhaha taagtaagaysa oo garan la qofka Samaale yahay. Samaan ayaa inta uu farta xaggiisii ugu fiiqay ku yidhi, waa kaa Samaale. Intay markiiba ku booday Samaale oo ay isku duubtay ayay oohin xad dhaaf ah ooda ka qaaday. 3 kale ee walaalaheed ahaana intay dusha kaga xoomeen ayay iyaguna oohin bilaabeen, gaar ahaan 2 gabdhood ee Sureer iyo Saad oo oohintoodu kaba badnayd midda Saxarla. Muxibo ayaa iyaduna intay qiirootay isku dhex tuurtay Saxarle iyo walaalaheed kuna oohin darsatay. Qorsho oo gudaha guriga ku jirtay ayaa intay iyaduna qayladii iyo buuqii maqashay bannaanka u soo baxday. Waxay aragtay dadka isku wada dhegan ee ilmadu ka wada socoto. Markiiba waxay iska garatay in Saxarle timid, inkastoo oohintii hiikicisay oo ay mar u muhatay inay ku dhex darsanto, haddana kuma ay biirine bannaanka ayay ka daawatay. Waxay salaantay Samaan oo keligii meel taagan oo walaalaha isku burburay daawanaya, iyadoo weli xaaladii halkii taagan tahay oo Saxarle iyo 2 hablood ee walaalaheed la aamusiin kari laayahay. Ayaa waxaa bannaanka ka soo galay Jaamac Dirir oo reerka soo salaamay, kadibna cod dheer ku yidhi, ma walaalihii kala lumay ayaa is helay. Markaas ayay kala foqeen, inkastoo Saxarle cabbaar laga fujin kari waayey Samaale. Sureer oo ilmada iska masaxaysa ayaa intay Saxarle hooyadeed farta ugu fiiqday ku tidhi, waa tan hooyo. Kadibna Saxarle oo ilmadu labadeeda dhaban ka dareeraysa ayaa xaggii Qorsho jaleecday oo ku dhaygagtay. Qorsho ayaa intay xaggii Saxarle u soo dhaqaaqday ku tidhi, iska waran hooyo. Dhowr daqiiqo oo kale markii ay aamusnayd Saxarle welina ay eegaysa ayay u dhaqaaqday xaggii Qorsho, iyadoo aan kelmad odhanna salaan u fidisay. Qorsho ayaa intay habsiisay oo isku wada duubtay 2 dhaban Saxarle ka dhunkatay, iyadoo weli Saxarle haysata ayaa intay afkeeda dhegta Saxarle u saartay ay ku tidhi, hooyo iska kee cafi. Waxay dareentay gacmaha Qorsho oo dhabarkeeda taataabanaya, kuwaas oo soo xasuusiyay dhirbaaxadii iyo dhabanaanadii ay la dhici jirtay. Waxaa codka Qorsho soo xasuusiyay qayladii iyo hanjabaadii ay ku samayn jirtay markii ay yarayd intii aanay ka cararin ka hor. Inkastoo colaadda ay u qabtay darteed, aanay Saxarle weligeed ku riyoon ama qalbiga gelin in waxay Qorsho ku samaysay ilaawi doonto. Haddana farxaddii walaalaheedii ay aragtay iyo kalgacalka ay u muujiyeen darteed ayaa markiiba nacaybkii qalbigeeda ku raagay lagaga siibay sidii irbadda. Ilaa iyo maalintii xoolaheedii ay dagaaladii iyo abaarihii kaga dhammaadeen ee ay qaxoontiga noqotay. Qorsho nolosheedii wax weyn ayaa iska beddelay. Waxay u dhowaatay xagga diinta,
waxaanay dib u milicsatay siyaabihii ay ku dhaqmi jirtay xilligii noloshii adkayd ee miyiga. Waxay si aada wax uga bedeshay sidii ay Soomaali ula dhaqmi jirtay. Waxay yaqiinsatay in Soomaali iyo carruurteedu ay isugu mid yihiin. Waxay weliba si gaar ah isugu sii dhawaadeen Soomaali markii aabihii Sandulle Naxar dagaaladii dalka ka socday lagu dilay. Soomaali waxa uu ahaa ninkii reerka badbaadiyey ee xuduudka ka tallaabiyey una gudbiyey xeryihii qaxoontiga ee Xarshin. Laga bilaabo ilaa iyo maalintii ay Xarshin degeen iyo intii ay Ingiriiska joogeenba waxay dadaal dheer qorshe u gashay sidii ay Saxarla u heli lahayd. Waxay sidoo kale carruurteeda ku abuurtay dareenka ah in aanay ka nasan sidii ay walaashood u heli lahaayeen. Inkastoo qorshe wax badan aaminsanayd in markii ay baxsatay Saxarla cidla bahala ku cuneen, haddana rajo weyn ayaa gashay. Kadib markii loo sheegay inay habaryarteed xamar kula nooshahay, Jaamac Dirir oo Samaan dhinac taagan ayaa yidhi, maasha Allah, ilaahay mar ma isu kiin keenay, bal aniga iyo martida shaah noo keena, warkiina mar kale ayaad kala dhammaysan doontaane. Waxaa markiiba xaggii jikada u dhaqaaqday Sureer oo weli ilmadii dhabanadeeda ku hadhay sacabka marinaysa. Dhowr tallaabo markii ay qaaday ayaa intay dib u soo noqotay Saxarla gacanta qabsatay oo xaggii jikada ula dhaqaaqday. Saad iyo Muxibbana isla markiiba way ka daba dhaqaaqeen. Sureer iyo Saad waxay had iyo jeer hiiga ku hayn jireen inay walaashood maalin uun la kulmi doonaan. Waxay ka ogaayeen ma jirin xumaanta iyo dhibaatada hooyadood u geysatay Saxarla iyo in ay hooyadood darteed u baxsatay. Waxay ahayd maalintii ugu farxadda weyneyd intii ay noolaayeen. Markii ay Sureer shaahii nimanka u geysayna, waxay iyada iyo Saad Saxarla iyo Muxibbo u kaxaysteen qolkoodii. Waxaa qosolkoodii iyo buuqooda gaar ahaan Sureer iyo Saad laga maqlayay bannaanka. Waxay Sureer iyo Saad ku murmayeen, Saxarle aniga ayay ii eg tahay iyo aniga ayay ii eg tahay. Sidii ay qolkii uga buuqayeen ayaa waxaa la gaadhay salaadii maqribka. Nimankiina bannaanka ayay ku jacdadeen sidii ay u sugayeen in habluhu mar uun soo baxaan. Ugu dambeyntiina qorshe ayaa albaabka ku garaacday oo u sheegtay in Jaamac Dirir iyo Samaan diyaar u yihiin inay baxaan. Markii ay bannaanka u soo baxeenna, Muxibba ayaa intay dhudhunkatay Saad iyo Sureer ku tidhi, waannu idiin soo noqon doonaa insha Allah. Kadibna waxay sheegay Muxibba iyo Saxarla. Markaas ayay Sureer intay Saxarla gacanta ku dhegtay ee ku tidhi, maya adigu tegi mayside, nala joog. Kadibna Saxarla ayaa intay Muxibba habsiisay oo labada dhaban ka dhunkatay ku tidhi, waa inoo berito abaayo. Intii aanay nimankii albaabka ka bixin ayaa waxaa soo noqday Samaan oo ku yidhi Saxarla, abaayo wax yar ma kula hadli karaa? Kadibna intay gooni isula baxeen ayay muddo 5 daqiiqo ah wada hadlayeen. Waxaana uu u sheegay inuu subaxnimada u imanayo. Markii Samaan iyo Saxarle ay hadalkii dhammaysteenna, reerka intiisa kale ayuu macasalaameeyey. Marka laga reebo Soomaali oo xoogaa sii dhaweeyey, Jaamac Dirir oo albaabka ka sii baxaya, hablihii walaalaha ahaana dacaayadaynaya ayaa yidhi, maasha Allah, mar haddii ilaahay isu kiin keenay, hadal kala bogan maysaane, caawa ha hurda seegina. Habeenkaas sidii Jaamac Dirir qiyaasay hablihii walaalaha ahaa laba indhood isuma keenin. Waxay ka sheekaysanayeen waayihii kala xanibay iyo noloshii kala fogeyd ee ay ku noolaayeen. Sureer iyo Saad ayaa shantadihii dharku ugu jiray soo furay oo wixii dhar ugu jiray intay soo daadiyeen Saxarla ku yidhi isku eeg. Marba intay shay u geliyaan ayay haddana ka saarayeen ilaa ay ka daashay. Waxaa ka yaabiyey sida ay jidh, dharar iyo dheehba saddexdooduba isugu eeg yihiin. Saad ayaa timihii dheeraa ee Saxarla oo furan, garbaheedana ka laalaaday intay qabatay tidhi, aniga ayaad ii time eg tahay. Sureer oo ka yaabtay siday Saad isugu dhadhajinaysa Saxarla ayaa iyaduna ku tidhi, naa kulligeen waynu isku eegnahaye, faanka naga dhaaf. Habeenkaas laba indhood isuma keenin. Sidii ay u sheekaysanayeen waxaa dhowr jeer albaabka ku garaacday qorshe oo ka baqday in qayladooda darisku ka seexan waayaan oo ka dacwoodaan. Inkastoo ay Saxarle jeclaan lahayd inay habeenkaas waqti la qaadato walaalkeed Soomaali, waxaa aada uga xoog badiyey kalgacalka dheeraadka ah ee Sureer iyo Saad u muujiyeen. Maadaama ay habeenkii oo dhan soo jeedeen, subaxnimadii hurdadii ayay ku raageen. Waxaa albaabka ku garaacday qiyaastii 11 subaxnimo qorsho oo intay qureecdii diyaarisay miiska u saartay. Inkastoo ay Sureer iyo Saad cuntada karin jireen, subaxdaas qorsho waxay la socotay xaaladooda. Markii ay miiskii cuntada yimaadeenna waxaa fadhiyay Soomaali iyo Saylaan oo iyagu subaxdii hore qureecday. Intii ay miiska cuntada fadhiyeenna waxay ka sheekaysteen qabanqaabada arooska Soomaali. Markii ay hablihii qureecdeenna, waxaa Saxarle u yimid Samaan oo ay ballansanaayeen.
gabadha Samaale guursanaya ee muhiim waxaa dhalay nin ku magac dheeraa Xaaji Taajiri oo aad hanti badan ugu leh bariga Afrika. Waxay ku kulmeen iskuulka dhaqaalaha ee London, halkaas oo ay labadooduba arday ka ahaayeen. Kadibna waxaa dhex maray xiriir saaxiibtinimo oo aad u dheer. Kadibna waxay ku tashadeen inay isguursadaan. Markii ay Samaale iyo walaalihii la kulmeen reer Xaaji Taajiri oo ay kala hadleen qorsheynta iyo qabanqaabinta arooska, waxa uu Xaaji Taajiri u sheegay in uu wax walba diyaariyay oo aan loo baahnayn inay howlgalaan. Xaaji Taajiri waxa uu caruurtiisa ugu jeclaa muhiim, wuxuuna ka ballan qaaday in aanu waxba ka hagran doonin marka ay guursanayso. Iska daa inay aroos kharash ka dhiibaan. Guriga Samaale iyo reerkooda ku soo degay waxaa iska lahaa Xaaji Taajiri. Habeenkii intii ay sheekaysanayeen ayay Saxarle walaalaheed uga sheekaysay in Samaan weydiistay inuu guursado. Waxa kale oo ay uga sheekaysay nolosha ay isla soo mareen iyo sida reerkoodu u soo dhaqaaleeyay. Waxa kale oo ay u sheegtay in Samaan ayeydii guurkooda ka soo horjeedo oo aanay rabin inuu guursado, iyadoo sabab uga dhigtay in cidda ay tahay aan la aqoon, iyo iyadoo igu eedaysay bay tiri in hadda ka hor lay guursaday. Waxaa markiiba soo booday Saad oo ka xanaaqday in walaasheed la yasay, kuna tidhi naa habarta xun iyada ayaa la aqoon meesha ay ka timiye, quruxdaas ayaad leedahay, ma nin ayaad adduunka ka weyday. Waxa ay doodii habeenkii oo dhan isla jeexjeexaanba. Waxaa markii dambe hadalka muggiisii qaadatay Sureer oo tidhi walaal inanku waxba ma bi'in, wanaag waxaan hayna gabadhu kama sheeganayso, islaamuhuna dhibkooda waa iska leeyihiin, dhaafa guursatee. Kadibna waxay halkii ka sii wadeen sheekadii qabanqaabinta arooska Samaale iyo muhiim. Intii la isla jeexjeexayay arrinta arooska ayaa Sureer waxay haddana dib ugu noqotay sheekadii guurka Saxarla. Markaas ayay tidhi alla wax muhiim ah ayaan ilaaway hooyo, Saxarla ayaa guursanaysa, waa inaynu weydiinaa waqtiga arooskeeda. Waxa kale oo ay ii sheegtay in inanka guursanaya isaguna degdeg u baxaye. Qorshe ayaa tidhi maasha Allah, waa war wanaagsan, waa in aynu sugnaa ilaa intay nooga imanayso. Qorshe oo aan hadalkii carabkeeda kasii dhammaanaya albaabka lasoo garaacay. Markiiba waxaa booday oo bannaanka u oroday Saad. Kolley waa Saxarle intay tidhi. Waxay noqotay sidii ay u malaysay, waxaana albaabka ka soo gashay Saxarle oo taksi ka soo degtay. Wax yar kadibna waxaa qolkii soo galay Saxarle iyo Saad oo gacmaha haysta. Markii ay muddo 2 saacadood ku dhow ka sheekaysanayeen arrimaha arooska Saxarle iyo kan Samaale, ayaa aakhirtaankii Samaale soo jeediyay in arooska Saxarle hordhaco, isagoo sabab uga dhigay in inanka guursanaya degdegsan yahay isagoo jecel inuu arko walaashii, maadaama ay ka weyn tahayna laga hor guursado. Isla markiiba waa la isku waafaqay, inkastoo qorshe warwar ka muujisay in aan tallaabo la qaadin iyadoo aan reer Xaaji Taajiri lala tashan. Ugu dambeyntiina waxay isku raaceen sidii ballantu ahayd in ay maalintaas reer Xaaji Taajiri u tagaan si ay arrinta soo korodhay ugu sheegaan. Inkastoo reerka intiisa kale ku tashadeen in arooska Saxarle lasoo hormariyo, haddana Saxarle qayb kama ahayn tashiga arrintaas. Isha unbay kala socotay dooda. Hase ahaatee markii ay doodii dhammaysteen, Saxarle way diiday in arooskeeda lasoo hormariyo iyadoo aan rabin in carqalad la geliyo ballanta hore loola galay reer Xaaji Taajiri. Markii ay cabbaar hadalkii Sureer iyo Saxarle isku calcaliyeenna, waxaa soo dhex gashay Qorshe oo ku tidhi hooyo waxba ma xumaanayaane, aan horta reerka u tagno. Sidii ballantu ahaydna waxay waqti qadadii tageen gurigii reer Xaaji Taajiri oo si weyn looga sugayay. Waxaa guriga oo aad u weynaa ka buuxay dad badan oo qadada lagu casuumay. Inkastoo aanay reer Xaaji Taajiri hore u arkin Saxarla, sheekadeeda aad ayay u hayeen iyo ila waayeyba. Markii la helayna, markiiba Samaale waxa uu taleefan u diray muhiim oo uu sheegay in walaashii magaalada joogto. Guriga markii ay soo galeenna, 3 hablood ee walaalaha ahaa iyo Qorshe waxay toos u aadeen qolkii ay muhiim ku jirtay si ay Saxarle isu baraan. aad ayay ugu farxday muhiim inay Saxarle la kulanto, iyo in walaalaheed aad ugu faraxsan yihiin walaashood la helay. Muhiim hooyadeed ka haya walaalaheed ayaa iyaguna markiiba ku soo biiray si ay Saxarle u bartaan. In muddo ah markii ay sheekaysanayeen ayay Qorshe ka codsatay Kaaha in iyada iyo muhiim bannaanka u yara baxaan si ay arrin uga sheekaystaan. Kadibna waxay Qorshe u sheegtay xaaladda arooska Saxarle iyo in inanka guursanaya degdeg u noqonayo. Sidaas darteedna ay Kaaha iyo reerkeeda ka codsanayaan in arooska Samaale iyo muhiim dib loo dhigo. Kaaha oo aan ahayn dadka madaxa adag, wax hadal ah kama soo celine, waxay ku raacday qorshihii Samaale reerkoodu wateen.
inkastoo Saxarle jacaylka Samaan maalinba maalinta ka dambeysay uu kusii duxayay go-aanna ay ku gaadhay inay guursato, haddana waxaa mar walba qalbigeeda ku wareegayay Muumine iyo meesha ay ka taagan tahay guurka iyada iyo Samaan. Inkastoo ilaa iyo maalintii ay sida xoogga weyn uga soo horjeesatay guurka aanu Samaan ayeydii la hadlin oo ay meel xun arrintu ka gaadhay, Madiine iyo Muxibbana ay Saxarle la safteen, haddana waxay si weyn warwar uga qabtay inay gasho guri dadkii xididka la ahaa shaki nasabnimadeeda ka qabaan. Inkastoo ay Samaan jeclayd inay Afrika ka dhooftana rabtay, may rabin inay isqiimo riddo, maadaama ay guri lagu xaqiro ku kortay. May rabin inay arrintaas dib u xasuusato. Arrinta ay Muumine ku kacdayna markii hore way ka qalisay walaalaheed Saxarle, sababtoo ah waxay ka baqday inay guurkeeda ka soo horjeestaan. Waxay gaar ahaan warwar ka qabtay Sureer oo ahayd qof aad u hanweyn, hadalkeeduna cadcad yahay. Dhammaan walaalaheed inay walaashooda ka weyn la kulmaan waxay u ahayd farxaddii ugu weyneyd ee weligood soo marta, waxaana dhiirigelisay markii Sureer ku tidhi, habartaas aasaqa ah dheg ha u dhigin mar haddii reerka intiisa kale ku rabaan. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 23aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Intaynu qaybta xigta iskugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.